saddex shay oo musiibo kugu soo socota ka hortagayda kaana celinayda. Musiibadaas inay kugu soo socoto ogow ama ha ogaan. Walaalahayga muslimiinta ahow, badanaa musiibooyinka nagu dhaca adduunkan dhexdiisa waa kuwa aan ku kasbanno dunuubteenna ama gacmaheenna. Allaha xaq ah ayaa ku yiri quraankiisa kariimka ah: Bismillahir Rahmanir Rahim, wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathiir. Masiibo idinma asiibaydo ilaa ma inaad ku kasbataan gacmihiinna maahane. Laakiin arrinta cajiibka oo aan muuqaalkan dhexdiisa kuugu sheegi doonaa waxay tahay saddex shay oo musiibo lagu qoray laguna qadaray oo kugu soo socota ka hortagayda kaana celinayda. Waa isku mid inaad ogeyd oo ka baqayday musiibadaas iyo inaadan ogeyne. Dhammaan shayaalkan aan kuu sheegi doono ayaa ah kuwa sahlan oo basiid ah ayna suuragal tahay qof kasta inuu sameeyo. Dhammaantoodna waxay ku jiraan Quraanka Kariimka iyo Sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Laakiin walaalkayga muslimka ah, waxaan ka codsanayaa inaad follow isoo dhahdo haddii aad iga daawanaydo barta TikTok-ga. Haddii aad YouTube-ka naga daawanaydana, subscribe saar channel-ka, gambaleelkana u furo si ay muuqaalada kugu soo dhacaan isla markaas. Muuqaalkana like saar si aan u ogaano tirsiga dadka muslimiinta ah oo na soo booqdo. Share gari oo gaarsii muslimiinta kale. maxaa yeelay wuxuu noo sheegay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam qofka khayrka faafiya inuu la mid yahay kan sameeya. Hadda anagoo daqiiqadaha soo gaabinayna waxaan gudagalaynaa sheegidda shayaalka saddexda ah, kuwaas aan hordhici kuugu soo sheegay inay ka joojinayaan musiibada intaysa ku soo gaarin ka hor. Shayga koobaad oo ka mid ah shayaalkan saddexda ah waa ducada ama baryaha Alle subxaanahu wa ta'ala. Ma ogtahay walaalkayga muslimka ah, ducadu inay celido oo ay ka xoog badan tahay qadaha iyo qadarta. taas kaliya maahan, bal musiibadu markay ka soo degto samada waxa u kor noqonayda oo ka hortagayda ducada adoonka, wayna joojinayda musiibadii, wayna celinayda biidhnillaahi subxaanahu wa ta'ala. taasuna ma ahan hadal anigu aan iri ee waa hadalkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu ku yiri xadiiska saxiixa ah: yanzilul balaa, yanzil waxa soo degayda albalaa musiibada, wayartaficu lahu ducaa, ويتقابلان في السماء ثم يعتلجان فيرد الدعاء البلاء. يعني ويرتفع له الدعاء، دعاء أي السراء آديسة أما كر آديسة كدبنا، ويتقابلان في السماء، سمدي أي إسكجهر إيمانا يعني مركب فيرد الدعاء البلاء، دعاء أي مركز وحي علينا إذا مصيبة دي عفوا. ثم يعتلجان كدب ويلا الله معيان مركزنا الدعاء أي حق بدناني دو فيرد الدعاء البلاء، دعاء أيام مصيبتي علينيسة. إذن أحبتي في الله، حبيب كان صلى الله عليه وسلم مركز أصحابتي سووا أمر جري دعاء إني بديان وحنا كله جري أكثروا من الدعاء فإنه لا يرد القضاء المبرم إلا الدعاء. محايا لي معلي كرته قضيه إلا سوغي وحن دعاء هين. قضاء المبرم معناه يدوحو ياي، يعني وح إلهي وقدري أو لسوغي أو لحكميي أو أدونك كسو سعودي وحا علينا يا الدعاء. xitaa markii la xugmiyay oo la sugay masiibada kadib, haddii uu Alle ku ilhaamiyo adoonka baryihiisa, waxaa hubaala inaysan ku dhacayn masiibadaasu. ducada iyo baryaha ayaana ka celinaya adoonka oo ka difaacaya. axibati fillah, waxaan ogaanay shayga koobaad oo masiibadii lagu qoray oo kugu soo socotay ka difaaci kara inuu yahay ducada. haddana waxaan ku barayaa duco gaar ah taasoo ka difaacayda masiibadii kugu soo socotay, ama ogow ama ha ogaan masiibadaasi. maxaa yeelay xaalad kasta waxay leedahay ducooyin u gaar ah oo loogu talagalay. hadday jirto masiibo lagu qoray oo kugu soo socota laakiin adigu aadan ogeyn, waxaa jirta duco loogu talagalay. haddii aad og tahay laakiin aysan weli ku soo gaarin, waxaa jirta duco loogu talagalay. qaado ducadan aad iiga mahad celi doonto, aadna sheegi doonto markaad barato kadib. sidan ayaad u ducaysanaydaa maalin kasta. waxaad leedahay: Allahumma inni a'uudhu bika min ghadri al-li'am وما حوته مصائب الأيام. هذا المركل كوجو عليه: اللهم إني أعوذ بك من غدر اللئام وما حوته مصائب الأيام. آخر سؤال كوع العلي الدعاء تصالحان صلاة كذب وكلا صدح جار آخر مالين كستا. وحين الدفاع كأجن قدونتا لما مصيبوينك كو آذن أوجين يكو آذ اكتهبا. محيالي أنت أدون كانت كشرتد مصائب يا امتحانك كما دما نيسيد. هذا أنا كوع العلي أو وردي مال الله كدقو. سيادنا نسوارك مصيبوينكي لغدري oo la xukmin rabay. haddii aad og tahay maalan in shaqadaadii oo kale laga cayri rabo, ayada lafteeda waa masiibo kugu soo socota oo aad og tahay, waxaadna ka akhrisanaysaa ducooyinkan. wuxuuna leeyahay: Allahumma ab'id anni hadhihi al-masiiba wakfini sharraha bima shi'ta ya rabbal alamin. haddii aad og tahay masiibada inay kugu soo socoto aad ka cabsanaysid, ducadan ayaad ka akhrisanaysaa: Allahumma ab'id anni hadhihi al-masiiba wakfini sharraha bima shi'ta ya rabbal alamin. marka waxaan ogaanay axibati fillah shayga koobaad
oo musiibadii kugu soo socotay kaa joojinaya inuu yahay ducada. shayga labaad kaasoo kaa joojinaya oo kaa celinaya musiibo kugu soo socota wuxuu yahay sanaa'icul macruuf, wanaagyaalkii inaad samaysid. tusaale ahaan musiibo ayaa kugu soo socotay laguu qoray, wanaag ayaa samayday, wanaaggaas ayaana kaa difaacay oo kaa joojiyey musiibadii. wanaag in la sameeyo way fududahay ciddii uu ilaahay u fududeeyo, maxaa yeelay aad ayay u fara badan yihiin. miskiina caawisay, faqiira caawisay, agoona caawisay, qof daciif ah oo taag daran, mid la dulmiyey oo garabkiisa istaagtay, kelimo xaqa oo aad tiri xilligii loo baahnaa. dhammaan wanaagyaashaas iyo wanaagyaasha kale oo la midka ah haddii aad samaydid waxay kaa joojinayaan ama kaa difaacayaan masiibo kugu soo socotay, waxayna kuu noqonayaan teed ama derbi kaa celiya masiibada oo aysan soo dhaafi karin. taasina waxay keenaysaa inuu cimrigaagu kuu barakoobo, aadna ku noolaato nolol fiican. taasina ma ahan hadal aan anigu ku leeyahay, ee waa hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam markuu yidhi sanaa'icul macruuf taqi masaaric as-suu. wanaagyaashii oo la sameeyaahu waxay ilaalinaydaa ama waxay kaa ilaalinaydaa masaaric as-suu. masaaric as-suu yani waa masiibooyinkii iyo waxyaalihii xumaaya kugu soo socday waay. khayr kastoo aad samayday wuxuu kaa ilaalinayaa masiibo uu allah hore kuugu qadaray ama uu kuu qorayba subxaanahu wa tacaala. ama ogow masiibadaas ama ha ogaane. wuxuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam allaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih. ilaahay addoonka kaalmihiisa ayuu yaho wuu u kaalmaynayaa intuu addoonku u kaalmaynayo walaalkiisa. adigana mar kasta oo addoon kaalmo u baahan aad u kaalmaydo waa laguu kaalmaynayaa oo masiibadii iyo imtixaankii ayaa lagaa celinayaa. waman faraja can muslimin kurbatan min kurabi dunyaa faraja allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waman satara musliman satarahu allaahu fi ddunyaa waalaakhira. idan axibatii fillaah, qof muslim ah oo aad asturtid waxay kaa difaacaydaa masiibo. maxaa yeelay masiibooyinka qaar ka mid a ayaa ku yimaada si faldeexayn ah ama ceebayn ah, marka ilaahay ayaa kaa asturaya oo kuu ceeb qarinaya. fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka leeyahay sayidina yuunis calayhi salaam qur-aankiisa kariimka ah markii uu nebi yuunis xoodku ku laqay badda dhexdeeda, falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii badnihi ilaa yowmi yubcathuun. ilaahay wuxuu leeyahay haddii uusan nebi yuunis ka mid ahaa lahayn kuwa tasbiixsada wuxuu ku nagaa lahaa caloosha kalluunkaas ilaa maalinta qiyaamaha. tasbiixaadku waxay ka mid yihiin sanaa'icul macruuf, waxayna ka celiday masiibadii. marka xuska alle inaad badido iyo inaad saacidaydo dadkii saacidaynta u baahnaa oo aad caawido waxay kaa difaacayaan oo ay teed iyo derbi kaaga noqonayaan masiibooyinkii laguu qadaray. haddii aadan sidaasi samaynna masiibooyinka waxaad u noqonaydaa qof u nugul. ilaahay ayaan ka magan galnay dhammaanteene. qur-aanka kariimka ayaa noo sheegaya aayad qurux badan oo xambaarsan macnahan. yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala wayudcimuuna addacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiiraa inamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariiraa fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wasuruuraa wajazaahum bimaa sabaruu jannatan waxariira. idan walaalahayga muslimka ahow waxaan ogaanay inuu shayga labaad oo masiibooyinka kaa joojinaya kaana celinaya yahay sanaa'icul macruuf, sida uu nabiga sallallahu calayhi wasallam yiriba sanaa'icul macruuf taqiika min masaarici suu. shayga saddexaad kaasoo kaa joojinaya oo kaa celinaya masiibada, maadaama aan kuu soo sheegay shaygii koowaad iyo shaygii labaad, marka ducayso wanaagyaasha samayntoodana badi. shayga saddexaadna wuxuu yahay al-istighfaar, yani kasratu al-istighfaar, inaad badidid akhrinta istighfaarta. istighfaarta sidaan ognahaba nabigeena sallallahu calayhi wasallam oo aan ognahay wax dembiya inuusan lahayn maalintii wuxuu akhri jiray 70 istighfaar ah. marka akhi fillaah, istighfaarta oo aad badisid waxay kaa difaacaydaa oo kaa joojinaydaa masiibadii kugu soo socotay oo laguu qoray, sida uu noo sheegay qur-aanka kariimka iyo sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasallam. istighfaartu waa shay aad u qaaliya. waxyaalaha ay gaarka ku tahay waxaa ka mid ah waxay kuu soo jiidaydaa risqiga, waxay kuu soo jiidaydaa farxadda iyo sacaadada. sidoo kale haddii uu akhristo qofkii aan ilmaha dhalayn oo ilmaha loo diiday oo uu badiyo akhrinta istighfaarta biidni illaahi alkariim wuu helayaa. fiiri qur-aanka kariimka ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina. waxaad ku tiraahdaa ha badiyaano istighfaarta. marka haddii ay istighfaartii badiyaan maxay helayaan? roobkii, barwaaqadii, maal, caruur badan. yani wayumdidkum biamwaalin wabaniina. waxaan idin yeelaynaa wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara, jannooyin ama beero iyo webiyaalo
sidoo kale ilaahay wuxuu ku leeyahay quraanka kariimka ma kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wama kaana allaahu mucadibahum wahum yastaghfiruun ilaahay ma cadaabayo adigoo ku dhex jira sidoo kale wama kaana allaahu mucadibahum wahum yastaghfiruun ilaahay ma cadaabayo ayagoo istighfaarsanaya oo istighfaartii akhrinaya marka istighfaartii oo la badiyo xataa cadaabka ilaahay ayay waxay kaaga noqonaysaa difaac xitaa masiibadu waa nooc ka mid ah noocyaashii cadaabka maxaa yeelay waxay ku dhacaydaa naftii waxay ku dhacaydaa awlaadii waxay ku dhacaydaa maalkii marka khulaasatan masiibooyinka iyo imtixaanada adduunka haddii aad rabtid inaad ka badbaadid waxaa laazim kugu ah inaad sameydid saddexdan shay inaad ilaahay baridid inaad istighfaarta badidid iyo inaad wanaagga samayntiisa badidid walaalkayga muslimka ah haddii aad nasteexooyinkan dhamaysatay hanaga hilmaamin muuqaalka inaad like saartid channelkan subscribe saartid gambaleelkana u furatid